maxay ayaad kula talin lahayd gabadhan da'deedu yar tahay? waxaan ahay gabadh da'deedu ay tahay 26 sano. waalidiintaydu waxa ay dhinteen markii da'daydu ay ahayd 14 sano. waxa aan ka baxay dugsigii aan dhigan jiray maxaa yeelay ma aan awoodayn inaan iska bixiyo fiiga qof iga bixiyo oo faamiliga aan muu jirin. maalin maalmaha ka mid ah waxaan la kulmay wiil, waxaan uga waramay xaaladayda, waanu isbaranay. kadib aad ayaa uu uga argagaxay. waxa uu dib iigu celiyay dugsigii. inankan waxa uu laamiyada magaalada ku iibin jiray khudaarta amba waxyaabaha macmacaanka ah. halkaas ayaa uu iga soo saari jiray lacagta fiigayga, dugsigana igaga bixin jiray. waqti kadib waxa uu bedelay shaqadiisii. waxa uu helay shaqo ka duwan, isaga oo darawal ka noqday baabuurta waaweyn ee iskaga gooshta magaalooyinka. halka waxaan aniguna sare u sii qaaday waxbarashadaydii, kuna guulaystay oo jaamacadaydii soo dhammaystirtay. iminka waxaan anigu ahay lawyer amba qareen, laakiin dhibaatada ay haysata ee talada u baahan waxa weeye in aanan wiilkan xidhiirkiisa sii wadi karin, maxaa yeelay aniga dookhayga ma aha, kamana aanan helin. waxaa lahay inaan guursado qof dookhayga ah oo anigu aan ka helo. haddaba sidee ayaa ugu wanaagsan oo aan u sheegi karaa wiilkan in aanan ka helin dookhaygana aanu ahayn, mana raba inaan dareemadiisa dhaawaco. waxaan uga mahad celinayaa in badan waxbarashadii uu ii diray iyo noocyadii kala duwanaa ee waxbarashada ee isaga awgii aan u soo bartay. daawade, waxaan kaa rabaa talada ah inaad igala taliso sidee ayaan wiilkan ugu sheegi karaa in aanu dookhayga ahayn, aniga oo dhaawacaan u geysan.